الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها المسلمون ولليال الله سبحانه وتعالى ينكم هذينا أيها الإخوة ساس مقليسان با بإذن الله تعالى خطبتنا أيضا ميلك لنا كل صومر دونته أيامانت وحكتابنا نعم إلهي أقول له شكري سبحانه وتعالى أيها النعمة إلهي أقول له شكرني وآية أقول لك جيست أيضا قصاروين كإماد دونه نفتهدنا بإذن الله تعالى وانتظرنا أيها المسلمون ولنيال الله سبحانه وتعالى وأنه نمعوين فربضنا هايسنا نعموين كاسنا لسيين متحان أيام كجرنا متحان كمركي وراقبا نول إيبي وراقي اسكعد عدا نول إيبي وراقاس مركي قياما لتقن قفل بنا والويدين دونا وحك قرناي مركا نعم كان إلهي أدالو شكرية زيادوين إيو خير فربضنا لغا قادي دونا haddaan lagu shukrini waayo oo lagu caasiyana ayadana cadaab fara badan iyo cudurooyin fara badan iyo dhib ayaa ka imaadi doona iyo ikhwa walaalayaal Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha haddaan dadow aan nicmooyinka ilaahay aan dhahna waan tirinaynaa lama koobi kara haddaan wax qalin oo adduunkan yeelo kulli la soo qaado waxa boogo adduunkan yeelo kulli hada la soo aruuriyo oo la dhaha nicmooyinka ilaahay aamnasi aan tirin aan xisaabna waxa la koobi karo la gaari karo ma ayyuhal muslimuun nicmooyinkaas marka ilaahay nasi dadka maanta adduunka zamanka hada joogo inta badan saa u badanahay aksarka saa u badanahay wiliba 90% iyo 8 saa u badanahay nicmooyinkan ilaahay subhanahu wa ta'ala waan ku caasinaa warka ma hayna qofka ama ayaraad ama aweynaada laakiin nicmooyinkan la sii oo faraha badan laakiin maalinkay ka tagtaas dareemi doontaa qofka muuminka oo laakiin nicmooyinka ilaahay in la koomi karin la xisaabi karin ilaahay waa noo caday subhanahu wa ta'ala ayuhal muslimuun qofkii shukriye oo shukri la imaada naftiisa ayuu ku shukriyay asiga ayaa wanaag helaya laakiin qofkii shukriga ka jeesta oo diida oo shukrigaas ilaahay subhanahu wa ta'ala u mahad celini waaya asaga qatar buu galayaa ayuhal muslimuun maxaa yeelay duco lagu duceysta afdalu duco lagu duceysta ma jirta ilaa ducada waxa ugu qiimo badan alxamdulillah qofka inuu dhaa ilaahay ku shukriyo subhanahu wa ta'ala fi kulli xaalin waqti walba maray abaar jirin maras culjir iyo maras culjirinba in ilaahay lagu shukri waa laga marmaan ahadiis nabi lagu warina ayaa jirta fara badan nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay at-tahadduth bi ni'mati llahi shukrun wa kufra wa tarkuha kufrun ni'mooyinka ilaahay oo lagu shukriya waa shukri ay ku ziyaadinaysaa laakiin haddaan lagu caasiyo gaalnimo ay ku geynaysaa ayuhal muslimuuna cibaadallah marka wala nicmooyinkaas ilaahay nasiib walaalayaal dadka maanta idaacadooyinka markaad dhageysto waa cala alkood ayaa batay cabaadkooda dadka waa batay oo ilaahay inay tala saartaan dadka way ka tageen bil aadan adiga aan ku dhaamin oo caloosha xaar ku wato qiimo lahayn asu qaylinaysa markii koobaad number 1 horta ilaahay gaad u qaylay subhanahu wa ta'ala ilaahay tala saara ilaahaygi adduunkan ka keenay oo saan ku hagaajiyay oo jirkan qiimaha badan kugu rakibay horta ilaahay gaas shukri u celi ilaahay garta la saara inta bilaadan la gaarin ka horo hay'adaha loo qaylina inta la gaarin ka horo horta marka koobaad ilaahay illa tala saarto way subhanahu wa ta'ala ilaahay oo la tala saarto lagu maqasaara bal iska dhaafi waa lagu badbaadaa oo waa lagu faa'iidaa adduunka horumar baa lagu gaaraa dhibaatooyinka looga baxaa cudurooyinka ayaa kaaga baxay ilaahay oo la tala saarto subhanahu wa ta'ala ayuhal muslimuun nabi xadiid ka sugan wuxuu leeyahay لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله
larazaqakum kama yarzuqu tayr dadka haday sida dhabta ilaahay u tala saaran lahaayeen oo xaqiiqo ay ka ahaan lahayd tala saaranta ilaahay dab ugu dhiiban lahaayeen sida shimbirahan ilaahay u irsaaqaa dadka loo irsaaqi lahaay subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala shimbirahan oo gurigooda ka soo buubay ayagoo waxba haysanin qof wax siiye ma qabaan qof bii u diyaariyana ma qabaan gurigooda bay ka soo kacaan way foofaan hunguri bay raadsadaan galabkiin ayagoo dhargan bay soo laabtaan ay guriyalkooda ku laabtaan ayagoo ilmahooda caloosha iyo afka wax ugu waday u tagaan laakiin bil aadanka ilaahay karaamay meel ay joogaanba nicmada roobka kaliya waxaan ka hadlayna waa nimco walba ilaahay nasiib subhanahu wa ta'ala caloolyalka hooyalkeen markaan ka soo baxaynay wallahu akhrajakum markaan ilaahay subhanahu wa ta'ala caloosha hooyadeen naga soo saaray anakoon waxba aqaanin ayaana la soo saaray banaankana la keenay la ta'lamuna shay'a waxaas taqaanay mar hadadow sida wax loo qorana ma aqaanin aqlina ma qabin waxaas macnaha waxbana ma qabsan karin adduunka ayaa lagu keenay xibnooyin fara badan oo sharaf badan oo aad u qiimo badan waa lagu rikibay xibnooyinkan ilaahay asnagu rikibay ilaahay nasiib subhanahu wa ta'ala maxaas ilaahay noo siiyay sababta maxaa waaya sababta waxaa loo jeedaa la'allakum tashkuruun wardada shukriya dadka waa inay shukriyaan ilaahay lagu shukriyo subhanahu wa ta'ala nicmooyinka ilaahay aadna si waa in la sheegaa in laga sheegto maaha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith nicmooyinka ilaahay asku si qof walba mu'min ah oo ka sheekay ilaahay subhanahu ni'amkiisa lama koobi kara ishan kaliya nimcadada meeqay qaracay haysaa maanta iyo liqwa ishan ilaahay nasi oo meeshaas ogaanto faqabanaysa adduunkan oo lacag dal uu siino kuma doorsanaysid laakiin ilaahay baa ku si subhanahu wa ta'ala iyo liqwa jirka bil aadanka marka la fiiriyo meesha ku xanuunta meel walba ku xanuunta meesha kala ka sii daran xibnaha ilaahay baa ku si illa shukriyo waa illa caasimaha maalin abaar baa laga soo baxay oo abaar baa lagu jiray xoolihii way baabeen ilmihii biyo loo waay dadka baadihi oo bay u been xoolihii oos iyo dhulku xabo ugu soo bixi waay cabaad ayaa dadka ka yeeray haddana ilaahay markaadna soo waraabay subhanahu wa ta'ala boqolkood neef oo eri markay ka dhimateen calaacal buu bilaaway war ma ogtahay halka xabo ku soo heer ayaa dhali doona halkaas xabo biyaha ay ka qaadin ayaa dhali doona oo kuwaas ayaa xoolo fara badan ku dhali doona aqligaas aan raba in laga shaqaysiyo laakiin boqol neef ay iga dhimateen meelahan ka qaylinaya waxa ilaahay kale nicamka ilaahay waa in lagu shukriyo waa laga marmaan ayo ikhwa marka walaaliyaal nicmooyinka ilaahay aan si aan lagu caasinin aan la qaylinin dad waliba waxa meelaha idaacadaha ka qaylinay ay leeyihiin war bismillaah waxa Allah ma jiraan bismillaah adina ay kuleeyihiin bismillaah furaha jannada waaya waa furaha wanaag waaya see lagu diidi karaa magac ilaahay aan ku bilaaway xoolaha markaas qalaysa nafteeda bismillaah magac ilaahay aan ku bilaawaya Allahu akbar ilaahay weyn nasal uu qala laakiin sheekh hebel aan ku qala Allah xoolaha ma hayo ikhwa ugaas hebel aan ku qalana ma yihini wax walba in bismillaah lagu bilaawo barakada ayaa ku jirto laakiin dadka intooda badan nicmooyinka ilaahay way ku caasiyeen way ku kufriyeen la in shakartum la azidannakum dadaw hadaas ugu shukrisaan oo shukriga asbadisaan oo nicmooyinkan asmahad ilaahay u celisaan waa nool ziyaadinaya roob barakaysan baa imaadi doona barakooyin fara badan ay imaadi doona dhulka coos ayaa ka soo bixi doona xoolihii way badani doonaan bil aadanka way barakoobi doonaan cudurraha ayaa bixi doona laakiin hadaa la diida ilaahay cadaabkiisa waa daran yahay wala in kafartum inna cadabi la shadiid wardadaw ani cadaabkay waa daran yahay iska jiro walaalayaal Allah subhanahu wa ta'ala ayo ikhwa marka walaalayaal dhibkan baajira ilaahay in lagu shukriyo waa waajib laga saaran nicmadan dabashan la marayay bal fiiriya laakiin maalinkii qabriga lagu geli dabal ma jirto qabowna ma jira waxaas cunaysana ma jiraan dabashan qabowga badan oo leertan macaanka badan ku mari haysa iyo sankaada nafta ka soo bixi haysa iyo indhahan wax ku arki haya iyo afku wax ilka wax ku ruugahaya wardada ilaahay ku shukriyo ilaahay lagu shukriyo waayo ilaahay lagu caasimaha dadka waa in isweydiyaa yaana laga dacwoonaya yaana loo dacwoona horta isweydiin waa su'aal hay'adaha ayaa loo dacwooday ma roob intay keeneen ay biyaha meel kasta gaarsiin karaan hadda biyo yaraayo imaaday waa dhamaadeen waa tageen intaas ilkii dhaxay ahayd dadkina calay bilaaween walaalayaal
hadday abaar imaadana nooma roono waa la canacanaya haddii kalena way ka sii daranta ayo ikhwa walaalayaal markii ayo ikhwa marka ilaahay laga baqo subxaanahu wa tacaala nicmooyinkan ilaahay aadna siiyey oo faraha badan in lagu shukriyo waa laga maarmaan walaalayaal walaalayaal nabi sallallahu alayhi wasallam xadiis ibn Abbas laga warinay wuxuu leeyahay laba nimcooyin oo bil aadanka ay ka faa'iideysanaynin oo ayna iska hilmaansan yihiin ayaa jira kama faa'iideysanayaan mashquul bay ka yihiin wayna nusqaamiyeen oo warba kama hayaane labada nimcooyin ilaahay ku sii waa laga qaadi doonaa maalin baas wayni doontaa nicmada caafimaadka waa shay muhiim boqolaalaha isbitaalaha jiifta oo biyaha lagu ay ku suran yihiin boqolaalaha isbitaalaha jiifta oo caloosha beeb caanaha laga siinaya caloosha beeb laga geli adigina caafimaadka ilaahay ku sii ilaahay subxaanahu wa tacaala taan buu ka yeelay waa socotaa waa shaqaysanaysaa inaas ilaahay ku shukriso waa laga maarmaan nicmadan caafimaadkan ka faa'iideysanayo almuslimuun nicmooyinkan caafimaadka faraha badan oo ilaahay aadna sii oo maanta aan la soconno dadka qaarna cudurooyin fara badan bay la jeefaan qaar cudurooyinka kansarka ayaa ku dhacay la jeefaan qaar cudurka AIDS-ka ayaa ku dhacay la jeefaan qaar cudurro calool xanuun ayaa ku dhacay la jeefaan qaar cudurooyin kale fara badan bay la jeefaan isbitaalaha ay jeefaan guryaha ay jeefaan jirooyin aan la aqaanin qaar ayaa haaya adigana caafimaad lagu sii waa kan lugahaadi waa caafimaad indhahaadi waa caafimaad jirkaadi kulli waa caafimaad ilaahay in lagu shukriyo maxajida ayu almuslimuun laakiin haddaan la yeeli waayo barakada waa la qaadi doonaa la ogaada midka xoolaha qabo oo taajirka xoolaha la sii dadka masaakiinta waxa sii xoolaha ku faantamin ilaahay xoolaha ku sii subxaanahu wa tacaala inaad kibir ku gala maaha inaad qaraabada irida ka xirata maaha adiga taajir ilaahay ka dhigay asiga ilaahay faqir ka dhigay labadiina mutaxaan baa ku jirtiin waalid mutaxaami haya hadaas mutaxaan ku dhacdana waa lagu su'aalo baa meel ku yeelay taajirow xoolaha ilaahay baa ku sii ilaahay ku sii horta bal ku shukri ko marka koobaad dadka masaakiinta wax ka sii kaliya ajeeba ku shukrin dadka maanta waxa loo batay wax walba aan kaligay wax walba aan kaliya ma sheeqow xoolihi aan kaligay lacagta aan kaligay wixii macaani aan kaligay adduunka aan kaligay wax walba madaxnimo aan kaligay ma yaada kaliya ma aha adiyo dadkan khalqigan ilaahay abuuruha adiyo dadkan ku nool adduunka ku joogo wax kaliya ma aha ada kaliya ayaa ku sii hadaas rabto qof wasarta haaw wax walba aan kaligay ayaa ku fiican wax shaqayna ma aha marka walaalayaal midka xoolaha qabo oo taajirka ah dadka masaakiinta xoolaha wax ka sii dadka masaakiinta xoolaha la qaybsa dadka masaakiinta gaariyalka daaqadaha midow in la xirto qaraabada la iska qariyo ayeelina xoolaha waa lagu mataxaami hayaa ilaahayna bari qiyaamo waa ku weydiina iska jir afarta shay oo markii ilaahay la hor istaago lagu weydiini doono waxa kamid ah xoolahan intay ka soo galeen intaasna ku bixisay horta meesha kasabkay ka soo galeen meel see waaya waa lagu su'aalayaa meeshaas ka keentay waa lagu weydiinayaa war intaas ku bixisay qaaran shar ayadana waa lagu su'aalayaa iska jir muuminow dadka muuminiinta xoolaha ma la qaybsa midka cilmiga la baray oo cilmiga la fadhiyo dadka cilmiga wax ka sii cilmiga ku faantamin kaliya ani cilmi ana qaana dadka ugu faanin kan waa jaahil waxa ma qaan umada dhihine umada cilmiga wax ka bar cilmiga nicmo ilaahay ku sii waaya dadka gaarsiyo dadka u sheeg inaas kitaab weyn soo qaadato oo as kitaabaha dhageysato laakiin cilmiga aad dadka u sheegaynin waa baqiilnimo waaye meel xubni waa ku geyn doontaa adiga hadda isku quman tahay laakiin xadiis iyo quraanka ilaahay waa warku waa noocaday kitaabkaada waa weyn yahay mar walbana kitaabaas wadaa meelaha goobta cilmigana waa fadhidaa cilmigana waa la fadhiyaa dadku xabo uma sheegaya baqiilnimada ka bax baqiil baas noqotay xoolihina kulay waa ku baqarsantahay iska ilaali nicamka ilaahay lagu sheegay walaaliyaal nicmada ilmaha lagu shukriya dadka ilmaha la sii dad ilmo lama siinin dadka ilmaha la siiyo ilaahay ku shukri subhanahu wa ta'ala kuwan ilmaha la siinin waalidin mutaxaan baa socdo mutaxaanka asaga ay markii aan ku dadaalna walaaliyaal walaga marno ayu al-ikhwa marka walaaliyaal waqtiga kulay noo yare waxa kale oo jira marka ayu al-ikhwa nicmooyinkaas faraha badan ilaahay in lagu shukriyo ayaa maanta baabkeena inaan ka hadalna dadka calaalka faraha idaacada ay ka qaylinayeen mar walba oo wax dhacaanba biira imaadaya lagtaya bii keenaysa wala cabaad wala calaale oo inta sanood aan soconin xoolihii ay daqayeen aw
inta sano oo dadka ay xanuunka ay haynin aawe marka walaalayaal marka shukriga ilaahay waa laga maarmaan subxaanahu wa ta'ala ya ikhwa dadka bil aadanka inay ilaahay goodo ku madax adag yihiin ilaahay baa quraanka nooga cadeey bil aadanku waa madax adag yihiin waxay gargari maaha qofka muuminkan saas laga marraba waa inay gar ku gashaa muuminow garta qaada marka walaalayaal intaas kulay waa nicamka ilaahay subxaanahu wa ta'ala in lagu shukriyo haddaan lagu shukrini waayana cudurooyin aan la aqaanin ay maadi doono lagu bashaaraysta nicmada ilaahay ma diidni haa waa diidni cudurooyin ay maadi doono la aqaan afkooda la aqaanin qof agtaada maraya cudur qaba qofkan cudurka qaba ilaahay adiga ku shukri sujuud shukri liimaaw ilaahay weydiisa ilaahay adiga qofka oo kale iga dhigin ilaahay cudurka aniga geesiga mari qof ayaa cuuriyaan oo miskiin lagu wadaa adiga lagu hadan waa tamaam waa nicamka ilaahay waa subxaanahu wa ta'ala tagaasiintan qaar xasuuintan dadka aan qaadaynin hata wayelaha aan qaadaynin markay aftaada maraan oo ka cararaan adiga lagu hada dhisal iyo shidaal uma baahna alxamdulillah tatimu saalihaat alxamdulillah hamdan katiiran tayyiban mubarakan fiih waa nicamka ilaahay waaya meeqa tagaasina ka cararaysan ku qaadaynin laakiin haday ogaan lahaayeen lagu hada fadliga haday ogaan lahaayeen walla kama tagi lahayn yaa miskiin aqli ma qabaan dadka ma qaadayin waa iska dhaqaajinayeen laakiin badsal uma baahna shidaal uma baahna dab ushada uma baahna alxamdulillah waa nicamka ilaahay bay kamid tahay inta inaan ka lugeynaan bulaha aadi karnaa aan ka laabanaan suufta aadi karnaa aan ka laabanaan busri aadi karnaa soo noqon karnaa taksiyo wadaas adiga dadka qaadi waysi ilaahay nicam buu nisi kumana baahni ilaahay ba subhanahu wa ta'ala baan u baahnahay ilaahayga waxaan nasiyan ku shukrina marka iyo ikhwa marka ilaahay in la barta waa laga marmaan ilaahay subhanahu wa ta'ala nicamkan marka la qada loogan doonaa alla barto muslimiina yaa iska ilaaliya qaylada iyo calaalka faraha badan bil aadan san ku dibro sidoo kale oo tabar qabin oo qiimo lahayn ilaahay ka weyn subhanahu wa ta'ala ilaahay awoodan lahay cirkan tiibaanta taagay dhulkan noo fidi hay waxyaalaha ka daran waxa kamid oo ajaayibta badan hurdada hurdayna ma artay nicmada ma arteen qofka jirin ma arteen saas u hurdaynin haya habeen iyo maalin xali waa soo dhaafnaa maalin aan ku jirnaa waja'alna layla libasa waja'alna nahara ma'asha war habeenki ilaahay labis buu nooga dhigay hatta habeenki mugdi markuu jiro darlaan dad guriga ka soo baxdo magaalada ku soo weerartay ku arkaya hatta dad koona markii ku arkay lagu ma jeeda maalinkan ilaahay wuxuu leeyahay maalinka waa inaan shaqaysanaa maalin in la dejiyo maaha waja'alna nawmakum subata hurdada ilaahay wuxuu nooga dhigay subhanahu wa ta'ala raaxa markaas jirto matras ku jirto jirkaada waa qabow raaxa ayaa dareemaysaa nin waa gidgidoomi haya oo waa jirin xal ma la masaxanin nicamkaas in la xasuusto laga marmaan ayu muslimuun marka nicamkan marka hadaan qaadan wayna midka weyn oo madaxda ilaa midka ugu dambeeya ugu hooseeya hadaa ilaahay lagu shukrin waayo waa sheegnay cudurooyina imaadi doono nicmada ilaahay inaan ku caasino markaatiba ka tiin kulligiin nicmada ilaahay in la warba laga haynin warba laga ma haayaba dadka meel kala noo shidan oo TV kala noo shidan umad war kama hayaan hadda maanta waxa la sheegay cudurooyinka AIDS ayaa faafay cudurka AIDS la ayaa faafay meel sarana waa qaracayaya meel qatar ayu qaracaya muslimiinay shalay niman taqaatir aan mar la fadhiisanay waxay soo saareen cudurka Mandera inuu 3,800 ma zaada oo si marihaya inta cudurkaas qabto la jirin taqaatirtu waxay leeyeen inta isbitaalka noogu imaadaysa waa kun kama badna inta kale warkooda lama haayo cudurkan maxaa keena waxyaalo fara badan keena laakiin aabaheed koow markii la shukrini waayay oo aroosyada iyo guurkii la qaalay nicamka ilaahay lagu caasi ayaa cudurro imaadeen zina ayaa laga qaadaa Soomaa zinada in laga qaado maxaa keenay guurka ayaa adkaaday kor baa loo qaaday meel saraan la geey ummadii way guursan waayeen shaydaankiina ma bacawgan qarqabihi waa jooga umada zina iyo waxa isku mataxaami fuxsha isku mataxaami ilaahina wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala wala taqrabu zina aydan balagaysa wala taqrabu zina wadada zina u dhawaanin xoogaha yar galgal lama dhihin baash tataabta lama dhihin xoogaha bal fafiirihi lama dhihin xoogaha yar barkaca soo taabta lama dhihin aayada waa caday waxay leedahay wala taqrabu zina zina u dhawaanina agteedana marina maxaan nooga celinayaa innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wadalla mar ayda ugu falxun koona la mar ayda ugu xun
أو دوانين زنا ما أنت وافقتي نعم كلا لوش قري واي إلهي نبديس على قادين واي جورك أو لا يرتي جور سلا هينو أي اسكور عيسلا هينو اسكو قبوا سلا هينو إلهي ولي وجعل بينكم مودة ورحمة إلهي ولي هاي أي اللو عاسي أو يا بيالك واد كين كرة يقادين زنا ماشي ما ده هذا عذرك يا سان الشجاية إذا قبل ملقيه مركو اللي عذرك إيدس وافقي وزين زيادة هاي وسير سعودة تراتير تقولي بقار وحيليه انت ده اللهم ملايين يا داو قادني هاي عذر كاسل اسكيل عليه الزنا ده على قفق هذا فردي حرام ده لقى عليه ننكي او معناها او قور ربو waxay ku qaatam iska xalaal guurso iska guurso hooyooyinka abyaalkan waxaan u sheegayaa gabdhahan ilaahay aasinsi waa nicmooyin gabdhahan ilaahay aaskusi waa nicmooyinka ilaahay bay kamid yihiin inaad ku shukriso waa inaad ku caasisama hadaa guurka kor loo qaado oo la isguursani waayo halaan yarta shaydaankan aad la joogo maxay suubinayeen kow zinada maxaa kaloo keena warku cad yahay zinada maxaa kaloo keena waxyaalaha kaloo zinada keena waxaa kamid ah nin ajnabi iyo habeenay ajnabi ayaa qol ku jiro labadooda kaliya saaki laba saacay qolkan galeen ilaa 8 saacay ku jiraan waxaas shukaan sinoceewa waxaan soo qashin ma waxaan iska sheegaa ma ogow waa li soo tos waa liigay meesha li soo tosi saaki laba saacay meesha galayeen ilaa 8 saac 9 saacna waa ku jiraan magaalada markii la baar wala helaya waxa shukaan sinoceewa ragow waxa shukaan siya ماشي الزنا وما كل عدوان كل واحد كلامها قبلها يوم ويلش الجنبي وقعما يسكو سلامة ينفت هذا نعمة إلهي ويكلف هذا إلهي باين كالديري أو كلف هذا قعما يسكو سلامنا هذا يمر قعما يسكو سلامان ولا بإسباق قعنتان إسباق كجرو تنوى إسباق لبضان قعما يسكو لقين بس مركا يسكو لقان قلبي قوستي زيادة ولا بلما هذا والسلام فرق هذا ماذي مرك والدين دعاو شرقينا إلهي قينا كبغى سبحانه وتعالى قبلها guur u guuriyo oo qof akhlaaq leh oo diin leh oo sharaf leh oo diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku toosan oo wanaagsan oo shantiisa waqti tukanaya gabdhaada ku darsa inta fasaadku waa sii badan doona 10 sano hadda soo socota anaga daan dhimana magaalada ay noqon doontaa kulligeen gabdhaan wada dhalnay gabdhaan yaa maqan wiilasheen yaa maqan marka la leeyahay kana jira cudurkaas marka AIDS-ka oo shalay ay taqaatiirta ay ka hadleen oo seminaar ay culimadu qabteen baa jiray marka dhibkiisana waa sii ziyaadaya waa sii socdaa dad waliba magaalada wax ku nool kulli markii la tarkoobo inta qabt intaas laga soo reebay cudurkan waxa kale oo khatartaas oo kamid ah cudurkan AIDS-ka waxa lahay qofka markuu ku dhaxo uu daawadan as qaadan waaya kansa ayuu wataa kansa ayaa la jira marka walaalayaal dhibkaas jira ilaahay laga baqo subhanahu wa ta'ala ilaahay la soo noqdo dulmiga la joojiyo oo dulmiga faraha badan dhabku wax keenay kulli in nimcada ilaahay lagu shukri waayo oo ilaahay lagu caasiyo oo ilaahay lagu kufriyo maxaa keenay dulmiga keenay ka horta markoobaad nicmada ilaahay illa la barani waayo maxaa keenay dulmi meel walbana waa jira laba qof haday is qabsadaan qof loo heliya labada qof cadaalad uma soobiyo dhabka waan hayaa ma odiya ma dhalinyara ma hooya ma aaba ma culama lama kala aha laba qof haday is qabsadaan aniga midkaan saaxiibkeen la jira kan saaxiibkeen garab siina haday laba qof is qabsadaan aniga kan la jira yaa ku dhakan la jir umada kala saar fa'dilu cadaalad suubi umada kala xukun kan qiyaamo qabrina ku maraaci doono kan ku maraaci doono hatta haday hooyada ay gardara suubisa oo dambi lagu soo oogo waa inaas gardarada isku cadayso marka walaalayaal dulmiga marka maanta jirana iska ilaalina dadka bashirlaydana ilaahay kin ka baqa nicmada ilaahay ku shukriyo nicmada ilaahay idin si oo dukaamaha iyo ganacsiga iyo xoolahaas gadanaysan oo nicamka ilaahay way kamid tahay ay isku dulmin iska ilaaliya ninka dukaan qabo dukaankaada Allah ku barakeeyo ninka meel weyn oo bagaash qabo Allah ku barakeeyo umada dulmin qof guri ku jiro ka baxsan adigana galin aqradaada ku qamaarin mustaqbalkaada adduunka halaynin mustaqbalkaada aqra halaynin qabriga isku cadaabin hadaa qolkaada isku jirto qof kala qolka raadinayso qof xoog ugu baxsanaysa meesha ilaahay isku barakeeyo waa nicamka ilaahay waa meeshan joogo meeshan ilaahay gaad ku tog alizulmin alizgadraysanin qof walba qof dulmana dadweynaha waxaan u sheegaynaa dadka laga qabta qof walba qof gadraysto wardada dadka ka qabta indhaha laga fiirsado ma dadka
انصر أخاك ظالما أو مظلوما حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظلم كان قف كان مؤمن كه أو ولالك قف قدر يسنا كقبا كل إننا كوذا فرسنا قف قدر يسنا يا والله فرسنا لما خلا يحب له مشي يا عمل لما قبنا يا وركجوا لما نهاي ور إلهي كبر لما نهاي إننا لا وذا فرسنا يا سوا دون وصارنا دون تمرك يبيها ولا كشنا قفل بوا ذي كتر مر